بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين walaalaha masjid sunna iyo ku xiran groupka waxaan idin rajeynayaa meel kastoo aad joogtaan cimri dheer iyo cibaado suuban iyo caafimaad waxaan rabaa kilibkan kooban min baab wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'miniin xusuusin si ay naftayda iyo tiinaba ugu noqoto waxaad ogtiin walaalayaal waxaa fooda nagu soo hayo oo la rajeynayaa caawa ama bari la rajeynayaa inay noo dhalato bishii dhulxijj bishii xajka bishan waa bil fadli badan waa bil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waajib yeelay dadka mu'miniinta ciddii awoodo inay xajiso bishan oo rugniga weyn ay soo gudato haddaba waxay bishan la dheer tahay bilaha kale marka laga soo tago rugniga ilaahay uu dhex dhigay waxaa ku jiro 10 maalmood oo ugu khayr badan adduunka camal la sameeyo 10kaasna acmaasha ilaahay ugu jecel badan yahay way subxaanahu wa tacaala wuxuuna nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadiisa uu u tilmaamay oo uu maartay ugu nasteexiyey inay ku dadaalaan acmaasha saalixa ah maxaa yeelay waa waqtiyada ama acmaasha la qabto 10kan beri waa acmaasha ilaahay agtii loogu jecel badan yahay ilaahayna ajir badan iyo maartay laalaab badan uu ka siinayo qofkii la yimaada in marka khayraadka la badsado wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala fi surati markii fajr uu ka hadlayay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wal fajri wa layalin 10 wal fajri wa layalin 10 ilaahay subhanahu wa ta'ala fajrkaasi uu ku dhaartay iyo maalmahaasi uu ku dhaartay mufassiriinta dhan waxay isku raacsan yihiin inay tahay 10ka beri ee maartay dhulxijj ugu horeeyo 10ka marka beri 10 beri oo fadli badan weeye waa ilaahay aayad kale fi suurata xajna uu ku tilmaamayo wayadhkuru isma Allahi fi ayami macluumaat ayaamkaas macluumaadka oo la yaqaano sida ibn Abbas uu maartay waxa weeyaan laga soo gurinayo yaani ayaamul 10 waa 10ka maartay maalmood oo ugu horeeya bisha dhulxijj inay ugu fadli badan tahay maalmaha adduunka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi nabiga maa min ayaamin alcamalu saalixu fiiha axabu ila allahi min hadihi alayaam ma jiro camal la sameeyo oo saalix ah oo lagu dhex sameeyo maalmahan dhexdooda oo ilaahay looga jacayl badan yahay maalmahan markaasaa saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allahi ولا الجهاد في سبيل الله من جهاد بي حتى كفضل بدنتها لأن الصحابة رضوان الله عليهم جهاد كقيمه يفضل يسي قرنيين ونلوينا سؤال شاسي صوتورين نبي وحيري ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء حتى جهاد كوكفل بدنه إلا ننبح أصيغ يمالكي سي نفتي سي بكسوها لا ماشي موجي marka maalmahaasi waa maalmaha ugu fadli badan amal ka fadli badanna ma jiro ilaahay loogu jacayl badan yahay 10ka bari amalka la sameeyo xadiis kale nabiga wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo Abdullah ibn Umar nabiga uu ka warinayo ma min ayaamin majro maalin ma aragtay waxa weeyaan ma min ayaamin a'zamu 'inda Allah majirto maalmo majraan ilaahay agtii kaga weyn ولا أحب إليه العمل فيهن لو أنا جعل بديه عمل لحدث القصمي من هذه الأيام 10 مالمها 10 النبي يقول فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد واحد بديسان تكبيرتا يمارتي تهليشا يمارتي تحميدك ما هاد نقع الله سبحانه وتعالى مالمها مركب مالمك وانويه وحال فيلا عاوة إن دلته أما هبين دما دلته كود ذا المركب إن خير كبتصته صلاة جماعات كتكتد تسبيح ذا بديسيد إمارتي استغفار ذا بديسيد صدقة ذا بديسيد صلاة سنة ذا بديسيد صونك مارتي وحويا سنة ذا بديسيد مالما فضل بدن ويه فرصة وين ويه إلهي ذنوبته وكلها فسبحانه وتعالى وإن لقى فائديسته أو قف كستو مسلم انتي أوذو ومارتي وحويا كفائديسته مالمهان إلهي وحن وديسنا سبحانه وتعالى إنه نقدر كوا إلهي وجارسيو إلهينا سبحانه وتعالى أفضيه أعماشي كفائديسنا لهاين وجزاكم الله خير.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.